madaxweynaha Soomaaliland ee waqtigan Muuse Biixi Cabdi oo kamid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada irka Soomaaliya dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre ayaa horaantii sanadihii 80-aadkii waxa uu ka badbaaday xadhig la doonayay in xabsiga lagu dhigo isaga oo ka soo baxsaday magaalada Muqdisho qisadan oo hore uga sheekeeyay isaga laftiisu waxa mar kale wax ka qortay BBC-da waxaana warbixintani ku bilaabmaysaa sidan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 80-aadkii ka badbaaday in xabsiga loo taxaabo xilligii ay jirtay dawladda kacaanku amar ka yimid madaxweynihii dawladda kacaanka ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa ahaa in mar kale la soo xidho mid kamid ah sarkaaladii ciidanka irka ee xilligaas oo ahaa Colonel Muuse Biixi Cabdi oo maalmo yar ka hor xilligaas oo ahayd 1983 laga soo daayay xabsiga booliisiyo military xadhiga hore Muuse Biixi iyo nin kale oo lagu magacaabo Qamariye ayaa la xidhay sanadkii 1900 intii u dhaxaysay sanadihii 1982 ilaa 83 iyadoo oo xilligaas la xidhxidhayay saraakiil ka soo jeeday goboladii waqooyi oo loo arkayay in ay ahaayeen kacaandiid gaar ahaan saraakiishan ayaa lagu eedeeyay in General Gani oo xabada lagu riday xilligaas isaga oo Hargeysa jooga in ay ka dambeeyeen iyagu 4 bilood kadibse waa la sii daayay markii ay dadaal badan bixiyeen xubno sarsare oo asxaab la ahaa mana ay dhicin in loo sii gudbiyo ama la tiigsado maxkamad labadoodii midna markaas kadib Muuse Biixi Cabdi wuxuu codsaday in waxbarasho loogu diro Mareykanka intiisa uu hawsha ku jiray ayaa waxa mar kale soo baxay amar kale oo ah in la soo xidho waxaana halka ka bilaabantay xaalad halis ah oo ay tahay ma la xidhi doona mise Mareykanka ayuu waxbarasho u doonan doonaa sidee ayuu ku ogaaday amarka xadhigiisa Muuse Biixi waa su'aal isweydiin mudan General Ibrahim Aadan Xalxal oo ahaa xilliga madaxa guud ee hoggaanka siyaasadda ciidanka ayaa ogaaday warka ah in saaxiibkii Muuse Biixi Cabdi uu ku soo baxay amar xadhig ah oo ka yimid madaxweynaha markii amarkii soo baxay ayaa aan xafiiska fadhiya ayuu qof muhiim ah ii soo galay wuxuuna ii sheegay arrinta cusub ee Muuse Biixi khusaysa run ahaan waan naxay laakiin go'aan degdeg ah ayaan qaatay waxaan aaday gurigii Muuse Biixi albaabka ayaan garaacay waxa iga furtay xaaskiisa markay i aragtay way naxday maadaama aanan warigay gurigooda hore u soo galin Muuse ayaa la yaabay hadalka uu saaxiibkii u sheegay isagoon filanaynin in la xidho wuu naxay laakiin si degan ayuu go'aan geesinimo leh u qaatay wuu soo labistay waanuna isa soo raacnay isagoo oo soo kaxaystay baabuurkiisii meel banaanka ah baan tagnay waxaan u sheegay sidii wax u jireen waanuna tashanay waxaanan isla garanay inuu si qarsoodi ah dalka uga baxo waliba isla caawa sidaas waxa ka sheekeeyay General Ibrahim Doolal oo la hadlayay BBC-da xilligaas warku soo baxay Muuse ma haysto baasaboor fiise tigidh iyo fasax uu ku dhoofaba kaliya waxa uu haystaa warqadii aqbalaada ee waxbarashada ee Mareykanka sida uu sheegay Doolal markaas kadib ayaa ay u hawlgaleen sidii ay ku heli lahaayeen iyaga oo qorsheynaya in uu 24 saac gudahood uu dalka kaga baxo inta kalena uu dhoomalaysto inta hawsha loo dhamaynayo markaas kadib ayaa baasaboor loo soo sameeyay sida uu sheegay Doolal Muuse Biixi waxaanu kula ballanay ayuu yiri Doolal in uu gurigeyga yimaado oo aanu kiisa tagin maadaama laga baari doono kiisa oo ay suurtagal tahay in la qabto waxaanan ku heshiinay in uu galo xafiiskii iskaashiga militariga ee Mareykanka oo gargaar weydiisto Muusena waxa uu tagay safaaradda Mareykanka isaga oo u sheegay sida xaal yahay iyo in la doonayo in la xidho safaaradda oo xilligaas weydiisay sida uu ku ogaaday in la xidhi doono waxa uu u sheegay in nin saaxiib ah oo uu ku leeyahay madaxda sare uu u soo sheegay arrintaas korneelkii haystay xafiiskaas ayaa isoo wacay 3 jeer baan ku idhi fadlan caawi ayuu yiri Doolal isagoo hadalkiisa sii watana General Doolal waxa uu yiri habeenkii aniga oo dibadda jooga ayaa xaaskaygii oo ogeyd arrinka Muuse Biixi isoo wacday waxay ii sheegtay in baasaboor fiise iyo tigidh bal loo helay Muuse oo isla markiiba uu u kacay dhinaca iyo garoonka diyaaradaha oo caawa uu ku qoran yahay diyaaradda mar kale ayaan go'aan gaaray anigu nin VIP ah ayaan qoranahay oo kulka madaxweyne la soo dhaweynayo aniga qaabilsan oo ciidanka garoonkaba maamulo xilligaas maadaama uu u baahnaa cid garoonka dhaafisa ilaa ciidamadii hangashta ayaa joogtay ayuu yiri General Doolal isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri toos ayaan garoonka u imid waxaanan ka soo galay qaybtii VIP-da waxaanan u gudbay qaybta immigrationka sawa Muuse oo ay ag taagan yihiin askartii hangashta ee ciidanka oo shandada ay la wadaan sidii sarkaal dhoof caadi ah u socda sarkaalkii immigrationka ayaa yiri
taliya maxaan qabanaa maxaad sarkaalkaas kuyuuga ugu haysaan war soo dhaqaaq baan ku idhi hawshii baa looga gaadhsiiyey kooxdii hangashna markay arkeen way caawiyeen alaabtii bay la qaadeen runtii isaga deganaansho ayaa ka muuqday laakiin aniga culays weyn ayaan dareemayey ayuu sii raaciyey doolaal hadalkiisa ma dhoofay mise waa la qabtay muuse biixi cabdi bal hadda daqiiqadaa sida xaalku ahaa haynooga sii warramo markii uu soo gudbay haddana waxaa dhacday dhacdo kale sida uu sheegay doolaal maalinkaas waxaa isna garoonka laga dhoofinayey sheekh cali suufi oo ahaa sheekh weyn qaar ka mid ah wasiiradana sodog uu ahaa intii aanay kicin diyaaraddii muuse laakiin safkii lagu jiro ayaa waxa yimid garoonka wasiirro uu horkacayo cali samatar wasiirkii gaashaandhigga ee ogaa amarka xidhitaanka muuse biixi waxay muuse oo waraysi uu kal hore bixiyey ku sheegay in uu ka naxay oo mooday in ay diyaaradda wada raaci doonaan laakiin markii uu ogaaday hawsha ay u socdaan ay neefi ka soo baxday oo sidaa diyaaraddii iyo safarkiiba ugu xasilay ilaa intii uu ka gaadhayay maraykanka waxaana muuse waraysigaas ku sheegay in uu haystay keliya $20 oo uu rabay in uu tareenka iyo guriga uu ku degi doono ku gaadho waxaan ka daawanayaa birta u dhow dhinaca VIPda ilaa inta diyaaraddu kacayso isaguna toos uunbuu u baxay waxaa ila taagan oo ii sheekaynaya madaxweynaha hadda dalka Soomaaliya aabihii Cabdilaahi Farmaajo oo xilligaa ahaa madaxa duulista iyo hawada isaga oo ilaahay halkaa waanu banaynay laydhadhka garoonka waanu hagaajinay maadaama ay habeen ahayd anna waxaaba uma jeedo uu igala hadlayo ninka mas'uulka ah ee muuse ayaan hubinayaa in uu baxo iyo in kale sidaas waxay yiri doolaal maxaa dhacay haddaba intii ka dambeysay halkaas marka ay sheekadu halkaa marayso maxaa dhacay haddaba markii la ogaaday in muuse biixi baxay waxaa loo qaatay in aanu arrinta xadhigiisa ee uu waxbarashadii u baxay waxaana la isku dayay in la soo celiyo sida uu sheegay doolaal laakiin ma suurtagelin maadaama muuse iyo maraykankuba ogaayeen sababta uu u baxay sidaas ayaa muuse biixi uu ku soo dhamaystay waxbarashadiisii oo qaadatay 2 sano markaa kadib waxa uu ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM isaga oo maanta ah madaxweynaha Soomaaliland oo loo doortay bishii Disembar sanadkii 2017 muuse biixi cabdi sida oo kale waa gudoomiyihii xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiye wuxuu ku dhashay miyiga Hargeysa sanadkii 1948 waxa uu BBC-da u sheegay in waxbarashadiisii Qur'aanka dugsiga hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Hargeysa dugsiga sare ee Camuud ee Boorama ayuu ka qalin jabiyay 1970 kadib wuxuu ku biiray ciidamadii cirka ee Soomaaliya sanadkii 1970 ilaa 1973 wuxuu tababar sarkaalnimo u tagay midowgii Sofiyeeti markii uu ku soo noqday dalka Soomaaliya wuxuu ka hawlgalay saldhigyadii ciidankii cirka ee Balidoogle Baydhabo iyo xaruntii dhexe ee ciidankaasi ee Muqdisho muuse biixi cabdi wuxuu ku 1981 ilaa 82 tababar ku qaatay saldhigga militariga Mareykanka ee gobolka Ohio kaas oo lagu magacaabo Dayton Airspace Colonel muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale tababar ku qaatay akademiyadda gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Fort Lee sanadihii 83 ilaa 85 muuse biixi cabdi markan kuma noqon Soomaaliya wuxuu toos uga degay Ethiopia 5 bishii May sanadkii 1985 wuxuu ku biiray jabhaddii SNM ee dagaalka kula jirtay dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Colonel muuse biixi cabdi oo kamid ahaa taliyayaasha ugu magaca dheeraa SNM markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay ee Somaliland ku dhawaaqday gooni isu taaga waxa uu sanadkii 1993 noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee Somaliland ee dawladdii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaan wasaaraddaasi hayay in muddo ah muuse biixi cabdi waxa uu markii laga soo gudbay ururadii siyaasadeed ee sanadihii 2002 markii dambe ku soo biiray xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo sanadkii 2008 loo doortay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga muuse biixi waxa gudoomiyaha xisbiga Somaliland taladiisa haya ee kulmiye loo doortay 10 November 2015 kadib shirweynihii xisbiga waxaana loo xushay inuu noqdo musharaxa xisbiga waxa uu ku hadlaa luqadaha Ingiriisiga Carabiga iyo Ruushka wuxuu jaamacadda Hargeysa ka dhameeyay shahaadada sare ee cilmiga xalinta khilaafaadka iyo dhismaha nabadda 2008 ilaa 2010 muuse biixi waxa uu leeyahay 2 xaas iyo 7 caruur ah 3 wiil iyo 4 gabdhood saaxiibayaal mawduucaasina maanta halkaas hay noo joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh